السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داوديال ميل كستو aad ka joogtaan daafaha caalamka iyo xilli kasto ay tahayba waa muuqaaladeennii aynu ku eegi jirnay hadba dhacdooyinka ugu dambeeya caalamka iyo waxyaabaha ka soo kordha xaaladaha kala duwan iyo dhacdooyinka maalinlaha uga dhaca duniyada. dhawaanahanba sidaynu ka warqabno waxa si xawliya u fidaya cudurka coronavirus ama caabuqa loo yaqaano COVID-19 oo guud ahaan adduunyada oo dhan saameeyay dhaqaalaheeda isu socodkeeda iyo xiriirka bulshooyinka kala duwan ee caalamka ka dhaxeeya. dalalka Yurub ayaa wajahaya saameyntii ugu cuslayd ee cudur tan iyo boqolkii sanadood ee la soo dhaafay kaasi oo waxyeello xooggan durtaba soo gaarsiiyay dhinaca dhaqaalaha isu socodka dadka iyo xiriirka dadweynaha. waxaana dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub ay ka mid yihiin dalka Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Spain, Holland iyo dalalka Scandinavianka iyo sidoo kale dalka Switzerland ay xilligan la tacaalayaan yareynta ama xakamaynta caabuqa viruska corona ama COVID-19 oo saameyntii ugu weyneed ku yeeshay qaaradda Yurub. dalka Talyaaniga ayaa dalka labaad ee saameynta ugu badan ku yeeshay dalalka adduunka waxaana tirada dadka cudurkaasi asiibay ay kor u dhaafayaan 50,000 oo ruux. sidoo kalena waa dalka koowaad ee ugu saameynta badan xagga dhimashada dadka oo cudurku haleelay waxaana dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 oo ruux. maalin kasta waxa laga soo sheegayaa xaalado hor leh iyo dhimashooyin hor leh. waxa iyaguna kaalmaha ee qaaradda Yurub markaynu eegayno ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad iyo afraad dalalka Isbaanishka, Jarmalka, Faransiiska iyo sidoo kale dalalka ay ka mid yihiin Scandinavianku. bal haddaba waxaynu inta barnaamijkan aynu ku guda jirno aan khadka telefoonkeedii ku casuumayaa Maxamed Muuse oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala gobolka Hessen. aanida xasuusiyo way noo suuragali weeyeen dhaqdhaqaaqa iyo kulanka bulshada oo la xadiday gudaha dalka Jarmalka awadii inaan Maxamed ku soo casuunay studio sida daraadeed bal waxaanu si toos ah ugu wareysanaynaa magaalada uu ka degan yahay. maxamed soo dhawow bal waxaad ugu horreyn nooga warbixisaa xaaladii ugu dambeeyay ee caabuqa coronavirus ama COVID-19. waan dhowey walaal Sakariya, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. aad baan kaaga mahadcelinayaa wareysigan. haddii aan si kooban uga hadlo bal su-aashaad weydiisay xawliga uu ku faafay xanuunkani. runtii xanuunkan si aad iyo aad u xawli ayuu ugu faafaya dalka Jarmalka, guud ahaan caalamka sidaas leeg buu ugu faafayaa. maantadan oo ugu dambeysay aan kula hadlayay imika 1,200 oo qof ayaa la diiwaan geliyay. waxaana dhimashadu ay ilaa imika maraysaa walow ay marka loo eego adduunyada kale dhimashadu aad u yar tahay 76 qof. marka xaaladda si guud loo eego Sakariyo aad iyo aad buu xanuunkani u faafaya, dad horlena uu gaadhayaa walow tallaabooyin doora la qaaday. maxamed sideen ogsoonahay xanuunku wuxuu ka dilaacay dalka Jarmalka labadii usbuuc ee ugu dambeeyay. dawladdu intii ka horeysay wax badan oo dhaqdhaqaaq ama qodobo lagu xakameyn karayo ama lagaga hortagi karayo cudurka ma aanay samayn. sidoo kale dadku waxay aad ugu dhaliilayeen in wacyigelintu aad u yarayd. maxaad u malaynaysaa in ay muhiim ahayd inay dawladdu hore u sheegto ama awaamiir uga soo saarto intaan dalkan Jarmalka aanu ka dilaacin cudurku oo ma imika maraya dalka saddexaad oo ugu saameyn ugu faafida badan la qaaradda Yurub. Sakariyo isla xisaabta noocaas ah oo la oran karo maxaanay dawladdu qaban, maxay mar hore ahayd inay qabato horta weli doodeeda lama gelin. waxa dalku uu dhexda kaga jira dhibaato caalami ah oo dhinac kasta saameysay. waxaana la isku dayayaa bal sidii dhibaatada looga bixi lahaa xanuunkana loo joojin lahaa. aniga aragtidaydana ma garan karo waxaan oran karo mar hore ay ahayd inay dawladdu samayso. waxaan aaminsanahay wax kastaba in sideedii ay dawladdu ugu tacaashay horeysa iyo dambeysaba. marka kole waxay u egtahay ilaa iyo imika aan la oran karin waxa dawladdu way ka gaabisay, laakiin horeysa iyo dambeysaba si fiican ay
loo wado. adigu waxaad ka mid tahay howlwadanada caafimaadka sida joogtada ah uga howlgala xarumaha caafimaadka ee dalkan Jarmalka gaar ahaan gobolka Hessen. bal waxaad maxamed nooga warbixisaa oo nooga warantaa weli ma la kulanteen xaaladda caabuqa xarunta aad ka shaqayso haddii aad la kulanteen maxaa waajibid ku ah marka uu horeysa qof caabuqa xanuunka corona qaba haddii aad la kulantaan waxyaabaha idinku waajibka ay aad qabanaysaan maxay tahay? ها walaal sida aad sheegtay waxaan ahay de howlwadeen kamid ah bahda caafimaadka anigu waxaan ka shaqeeyaa deegaankan magaaladan aan deganahay dhakhtarkeeda walow aanay aagaygan aanu ku badnayn xanuunkan coronavirus-ka oo aan naloo keenin patient aad iyo aad u badan aanu iminka maxaan ku dhahday la yaab noogu noqda laakiin haddana sidoo ay tahay waa naloo keenaa dad patient oo xanuunka qaba waana waxaana iska noqotay maalinka maanta de wax nolol maalmeedka kamid ah inaad subax kasta aragto qaybta caafimaadka ee dhakhtarkan ka shaqeynaya waxa loo sameeyay meel gaar ah oo dadka lagula tacaalo qofka howlwadeenka marka uu qof xanuunkan qaba oo uu og yahay oo laga soo baaray uu la kulmo waxa ku waajiba marka ugu horeysa inuu isagu naftiisa uu iska ilaaliyo uu xidho waxaan sanka lagu xidhanayo sanka daboosho afka daboosho ilaa iyo marka dambe uu jirka oo dhan qalabkii loogu talagalay uu xidho marka runtii walow anagu waanu nagu yaryahay oo 730 qof oo keliya ilaa iyo iminka laga helay haddana maalin kasta waan loo kulanaa waanu daweynaa wax xaaladoodu ay serious noqotayna weli nalooma keenin laakiin dadka ay calaamadahoodu fudud yihiin iyo dad mararka qaar maxaan ku dhahdaa naqas ku dhago oo u baahan in la siiyo oxygen iyo lagana daweeyo calaamadaha xanuunkan leeyahay waanu aragnaa waan wax iska caadi ah baan noqotay. go'aanada caabuqa lagu xakameyn karo ee ilaa hadda ay dawladdu soo saartay waa kuwa tiro badan maxaad u malaynaysaa in go'aanadaas ay dawladdu soo saartay ay ugu muhiimsan yihiin ama kuwooda ugu muhiimsan aad oran karto waxa lagu xakameyn karaa cudurkan sidoo kale ma jiraan kuwo aad isleedahay kuwaasi waxba kama tari karayaan xaaladda fiditaanka caabuqa COVID-19 ilaa iyo iminka sakariyo go'aamada la qaaday maxaan ku dhahday dawladdu ku xakameynayso fiditaanka cudurkani aniga aragtidayda weli lama hayo maxaan ku dhahday saameyntoodii lama arag oo xanuunku ma istaagin haddana ilaa iyo iminka waxa weeye tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaadi karo in la yareeyo bulshada iyo isu imaatinkeeda si loo ilaaliyo faafitaanka cudurka marka ilaa iminka tallaabooyinka dawladdu qaatay waxaan oran karaa way ku saxan yihiin maqaamkoodina way joogaan laakiin waxaanu rajaynaynaa in weygaga soo socda aynu aragno natiijada ka dhalata tallaabooyinka la qaaday oo gobolada dalka Jarmalka aynu ku noolnahay ku kala duwan yihiin oo gobol kastaaba uu isagu tallaabo u gaara walow marka loo eego si guud ay isku wada dhow yihiin haddana goboladu way ku yara kala duwan yihiin tallaabooyinka ilaa iminka la qaaday. maxamed sidaynu wada ogsoonahay deegaanada Soomaalidu degto laba meelood ayaa lagu sheegay in laba kiis laga helay inkastoo kiiska ay dawladda Soomaaliya shaacisay ee magaalada Muqdisho markii dambe hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunku ay sheegtay in aanay waxba ka jirin oo arrinkaas uu shakiyunaha ilaa imaka wuxuu baa xaqiiqo oo la og yahay Djibouti halkiis laga helay qof Chinese oo u soo duulay sidoo kale markaynu eegayno awaamiirta lagu xakameynayo cudurka ee adduunyada oo cudurku ka dilaacay ama dalalka waaweyn oo cudurku ka dilaacay saameynta uu ku yeeshay lagu xakameeyay kuwa lamid ah ayaa deegaanada Soomaalida lagaga dhawaaqay oo maamulada iyo xukuumadaha dhulkaasi ka jiraan ku dhawaaqeen ma u malaynaysaa in tallaabooyinkaasi ay xakameyn karaan in cudurku u gudbo gudaha xindaabka Soomaaliya ama deegaanada Soomaalida? sakariyo horta weli geeska Afrika xanuunkani kuma badna dalal laga helay way jiraan laakiin lagama helin dalkeennii imaka Somaliland oo kale weli lama xaqiijin kiisas coronavirus dhinaca Soomaaliyana waxa la xaqiijiyay oo caadi weli ma jiraan
marka talaabooyinka ilaa imika la qaaday ee ah in iskuulada la xidho in maxaan ku dhahdaa waxyaabo badan la sameeyo runtii waxay weeyihiin kuwa aan ku munaasib ahayn maadaama uu xanuunku aan bulshada dhexdeeda ku jirin in cabsida intaa leeg bulshada la geliyo may ahayn waxyaabo badan bay sababaysaa arrintaasi oo in maciishadu kor u kacdo in wax waliba isbedelaan marka runtii waxaan u arkaa inaanay tallaabooyin aan ku habboonayn ahayn maadaama bulsho aan cudurku ku dhex jirin sidaa loo karantiimeeyey oo iskuuladii iyo jaamacadihii la fasaxay waxay weegtay tallaabooyin aan ku habboonayn dabcan tallaabooyinka in diyaaradaha dalka soo gelaya dadka dalka soo gelaya la hakiya way ku habboon yihiin waanay fiican tahay arrinta la sii adkeeyo laakiin bulshada dhexdeeda maadaama aanay bulshada cudurkii qabin in dhaqdhaqaaq intaa leeg la geliyo may qurux badnay waxaan habboonayn bay runtii ahayd su-aasha ugu dambaysa intayna waraysiga gabagabaynin aan ku weydiinaya wax weeye bulsho badan oo Soomaaliyeed baa laga yaabaa in halkan naga daawato oo guud ahaan qurbaha iyo dalkiiba jooga maxaad si gaar ah talo u sii lahayd dadka dalalka uu aafiyay cudurkani jooga gaar ahaan kuwa Jarmalka ay nugula nool maadaama Jarmalku uu hadda kaalinta saddexaad uu kaga jiro dalalka ugu horeeya saameynta cudurka COVID-19 uu faraha baas ku hayo سكري واد ما سنت ولا وسؤال يا أدو مهمة talada guud ee anagu dadka Soomaalida ee Jarmalka ku nool siinaya waxa weeyeen isku day in badan in wararka Jarmalka wax ku ogaataan la socda xaaladda halka marayso way saacad kasta iyo maalin kasta waxba isbedelaya go'aamo horle oo noloshaada shakhsiga khuseeyo baa la gaaraya marka isku daya in saxaafadda la socotaan ogaataan waxa marba cusub iyo go'aamada marba cusub la soo saaray iskuna daya in sida loo soo saaray ay u fulisaan oo ugu hoggaansantaan maxaan ku raahdaa si guudna dee caafimaadkeena uga taxadira oo u ilaaliya insha Allah ta'ala in xanuunkaasi aanu si guud bulshadana Jarmalka ku nool iyo dadka Jarmalka iyo ummadaha oo dhan ilaahay ka kaxeeyana waynu rajeynaa in ilaahay naga nabadgeliyana oo rajeynaa aad iyo aad baa mahadsantahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Muuse oo ah howlwadan caafimaad oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala dalka Jarmalka gaar ahaan gobolka Hessen oo warbixintan aan wax kaga weydiinaynay baada xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus waxa muuqaalkeedii soo jeedinaya anigoo Sakariye Jeelani waxaan ay kala qayb qaadanayay Maxamed Muuse tani intaan ku kulmayno warbixin sidan oo kale ayaa waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh